السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم مرويني مدن يا دمانتين بميل والبوات كجوكتان عالم كهالكني واي اس تي في waxaad ku soo dhawaataan wararka haatan naga soo gaaray deegaanka iyo qaybaha kale ee dalka gudihiisa oo aan idin la socodsiinay anigoo ah Maxamed Xasan qodobada haatan wararka ugu doorkarona waxa kamid ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in barashada xirfadaha ay tahay tubta lagu jabinayo xeyndaabka saboolnimada waxaana kulliyadda Polytechnic ee magaalada Jigjiga ka qalin jabiyay dufcadii 15aad ardayda u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ka qalin jabisay jaamacadda Diridhaba ayaa waxa xaflad casho sharaf ah loogu sameeyay magaalada Diridhaba sidoo kale wararka waxaad ku daawan doontaan jaamacadda Ambo ayaa waxa ka qalin jabiyay arday ay tiradooda kor dhaafayso 4000 oo arday inta waa qaar ka mid ah qodobada wararka haatan ugu doorkaroon iminkii haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan markale waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in barashada xirfadaha ay tahay tubta lagu jabinayo xeyndaabka saboolnimada waxaana kulliyadda Polytechnic ee magaalada Jigjiga ka qalin jabiyay dufcadii 15aad qalin jabinta waxa ka qayb galay wariye Cabdi Cumar oo warbixintani ka soo diyaariyay dufcadda 15aad ee ka qalin jabisay kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee Jigjiga Polytechnic ayay tiradoodu dhan tahay 304 arday oo bartay 17 xirfadood oo kulliyaddu ay bixiso waxaana munaasabadan qalin jabinta ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mas'uuliyiin heer deegaana odayaal dhaqameedka qurba joogta iyo sidoo kale marti sharaf waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in barashada xirfadaha kala duwan ay yihiin tubta laga baxayo saboolnimada sidee looga bixi karaa saboolnimada waa taalaadaba saboolnimadu haday tahay qof xanuunsanayo kale oo qof xanuunsanayo in la daawo u baahan yahay laakiin daawadii waxa dhiig hadduu ka socdo oo dhiiggu soo wuxuu baahay dhiig joojin buu baahay degdega marka dhiig joojin waxa weeyaan inaad xirfad barato waa dhiig joojinta saboolnimada yaani maxaan ku raayay in xirfadii ku haysay waxa weeyaan yaani saboolnimadii ku haysay ee degdega ah sidee maxaan ku raayay looga bixi karaa adiga qoyskaaga waa sabool in wax barataan rabtaa marka waxa weeyaan qofkii isagoo buka waa la daweyn karaa laakiin hadii la yiraahdo la daweey marka hore dhiigga laga joojiyo waxa dhiigba ka socda dhiig joojin baa lagu dhufanaya marka saboolnimadina waxay u baahan tahay marka hore in dhiig joojin lagu dhufto dhiig joojintiina waa ina maxaan ku raayay waa nidaamkan polytechnicalka xirfadaha weeyaan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in barashada xirfaduhu ay lafdhabar u yihiin shaqo abuurka iyo sidoo kale isku filaanshaha xirfadlayaasha isla markaana meesha ka saarayso nidaamka mashaqaystanimada iyo dulsaarnimada qofka farsamo markuu leeyahay isaga shaqo abuurka abuuraya isaga dad u shaqeynayaan marka nin kasta wax soo barto waa inuu ku fikiro inuu isagu dad shaqaalayo laakiin isaga in la shaqaalayo maaha madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sidoo kale tilmaamay in ka faa'iideysiga xirfadaha kala duwan loo dhaadhiciyay gobolada deegaanka si loo daboolo baahida bulshada isagoo xirfadlayaashan qalin jabiyay ku booriyay madaxweynuhu in xirfadaha kala duwan ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshadooda dawladuna ay la barbar taagan tahay waxyaabaha laga maarmaanka waa maxalliga ka baahan yahay idinka in aad shirkad isku xidhantaan degmooyinka iyo gobolada nood Jigjiga kaliya maaha goboladii waxa looga baahan yahay farsamo waxa laga soo doonan waxa weeyaan degmooyinka gobolada halka kuraas laga soo doonto sariir waxa weey maxaan ku raayay laguma sameeyo degmooyinka iyo gobolada waa in lagu sameeyaa waxa weey woodworking farsamada soo barateen waa in degmooyinka halka laga helo transportiga ay ka jaban tahay marka waxa weeyaan farsamada soo barateen haday leertahay haday construct tahay dawladdu hadii leeyahay way ka caawin doontaa qalabka iyo waxa way wixii kale loo baahan yahay wasiirka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada ee deegaanka Mudane Naasir Xasan ayaa sheegay in xafiisku wado ballaarinta kobcinta xirfadaha kala duwan si xal waara ay ugu noqoto saafteerida saboolnimada iyo kamira dhalinta horumarka qaybihiisa kala duwan fikirka mashaqaystanimada waxa jabinayo tubtii lagu jabinayo waa tubtan xirfadaha la barto sida darteed haddaan nahay annaguna sektorkii TVED-ka haddaan nahay waan si laabana dadaalkeena sanadka soo socda 2009ka sanadkii hore 5,000 oo qof baan qaadanayd laakiin sanadka soo socda haduu Ilaahay dhaado waxaan qaadanaynaa 10,000 oo qof baan qaadanaynaa maarayaha kulliyadda Jigjiga Polytechnic Mudane Farxaan Maxamed ayaa isaguna sidoo kale tilmaamay in ardadan qalin jabiyaashii ay ku soo beegmeen maanta waa fursad aan kuwii hore aynan heli karin baad hesheen marka hambalya baad leenahay kulliyadda
jigjiga polytechnic ilaa xilligii la aasaasay 1994 waxaa ka qalin jabiyey tiro arday oo dhan 7663 arday oo ay maanta dacfadan 15aad ee qalin jabinaysa ay ka mid tahay ardadaas oo bartay ilaa 25 xirfadood waxaan leenahay dadaalkii aad ugu soo jirteen maanta natiijadeedii maadaama oo taagantihiin inaad ka midho dhalisaan waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay intii ay socotay munaasabadan qalinjabintu ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax soo saarka kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay soo saaraan iyadoo halkaasina ay kusoo indhiindhiyeen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan ay ku qalinjabinayeen ardaydan ka qalinjabisay kulliyadda farsamada xirfadaha iyo tababarada ee dugsiga Polytechnic iyadoo halkaasina sharaxaad dheer laga siiyay madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay xirfadaha kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay soo saareen waxaana gabagabadii munaasabadani abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey barayaashii hormoodka ahaa iyo sidoo kale ardaydii kaalimaha koowaad ku guulaystay waana kuwan ardayda iyo waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabadan oo cabiraya dareenkooga 94 waxaan ka qaatay departmentiga la yiraahdo auto mechanic haddana mar labaad baan xiiseeyay inaan gacmahayga wax ku qabsado oo haddana markaasaan dib ugu laabtay haddana imika waxaan ka qaatay maadada la yiraahdo surveying oo aad u xiiseeyo oo wali haddana mar labaad mar saddexaad baan doonayaa inaan ka qaato markii labaad haddana mar saddexaad inaan ka qaato waxaan leeyahay markaad ummadda u soo jeesta gacmaha wax laga qabsado wax lagu gaadhaayo waxaan bartay departmentiga EMT engineer electromechanical engineering technology jigjiga Polytechnic College guud ahaan shacabweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya salaamaya iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaan ballan qaaday inaan shacabka deegaanka ee ku nool 93 degmo midna lagu qoro inaan ka shaqeynayno oo si daacad ugu shaqeynayno uguna adeegna musuqan aan la dagaalamino iyo saboolnimada anoo muddadan intaan soo wax baranayo maanta waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa hooyadayda intaan garab taagneed iyo walaalahayga qaaliga oo asxaabtayda qaaliga waxaan ballan qaadayaa inaan hili hooba aan garab joogayo shacabkayga inaan garab joogayo aan hili hooba qaadaya waxaan barnay 3 sano barnay waxaan bartay level 4 bartay waxaan ballan qaadayaa inaan baahida biyaha ee ka jirta dowladda Soomaaliya Itoobiya oo daboolano oo anagu oo shaqo dawladda ka sugno anagu oo shaqayntan abuurano oo shaqo abuur sameysano waxaan leeyahay arday kala qanjibsana waxaan leeyahay hambaliyo leeyahay waxaan leeyahay sarakacno fadhigeedina kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee dugsiga Polytechnic oo la aasaasay sanadku markuu ahaa 1994 tirsi taariikheedka dalka ayaa waxaa tan intaas ka qalin jabiyay arday tiradooda dhan tahay 7663 arday oo bartay xirfadaha kala duwan ee kulliyadda ay bixiso waxaana intii munaasabadan qalin jabinta ay socotay lagu soo bandhigay riwaayado iyo fariimo ka turjumaya ahmiyadda mug weyn ay leedahay barashada sanooyinka kala duwan ee kulliyadaha deegaanku ay bixiyaan aad ayuu u mahadsan yahay wariye Cabdi Cumar oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay ardayda u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ka qalin jabisay jaamacadda Dirdaba ayaa xaflad casho sharaf ah loogu sameeyay magaalada Dirdaba sida warbixintani ku sheegay wariye Cabdirasaaq Ibrahim waxaa xaflad casho sharaf oo sare loo soo agaasimay loo qabtay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Dirdaba University ee u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xafladani oo ka dhacday hotel Sami Manafasha ee magaalada Dirdaba ayaa waxaa soo diyaariyay xafiiska xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee laanta Dirdaba hadaba xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo looga bartay ka warhaynta shacabka deegaanka meel kasta oo ay ka joogaan dalka iyo waliba caalamka ayuu ujeedada ay ardaydani ugu qabteen xafladani ay ahayd siday oo la qaybsan lahaayeen farxadda ardaydani ka qalin jabinaysa Dirdaba University ee bartay culunta kala duwan ee digriga daba qalin jabintan ardaydani oo dafcadii 8aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Dirdaba ayaa waxaa la dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay madaxa xafiiska xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee laanta Dirdaba mudane Subane Cabdi Axmed isagoo aad ugu hambeliyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Dirdaba sanadani 2008 tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya kulana dardaarmay ardaydani in culumiga kala gadisnaa ay barteen kula laabtaan deegaankooda si ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda deegaanka waxaad ogsoon tihiin sanadka ugu dambeeyay ama sanadka hadda dhamaadka ah inaan shaqaaleynay oo markii ugu horeyso abad baa deegaan ahaan iyo dal ahaan iyo wadamada kale markii loo eego waa halkii mar oo deegaankeena kale oo taariikh ahaan loo qaatay 7,000 oo arday oo soo qalan jabisay ayagoon cidna loo eegaynin oo qabiil iyo nin jeclaysi iyo waxaan loo eegaynin qof kastana nasiibkiisa oo lagu shaqaaleysiiyay marka maadaama aad ku soo hagaagteen waqti ugu fiican oo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya
ay xaqiijiyeen horumar nabadgelyo iyo maamul suuban idinkana aad noqon doontaan cudud xoog oo shaqaale oo ka soo kordho deegaankana wax u qaban doono inaad noqon doontaan ayaan mar labaad idinkuna aan idinku hambaleynayaa dhinacooda ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Diridhaba ayaa maraan mikrofoonka la dhex qaadna sheegay dareenkooda farxadeed ee ku aad xafladan heerka sare ee uu soo diyaariyay xafiiska xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee laanta Diridhaba isla markaasna aad u bogaadiyay dadaalada ballaaran ee uu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ugu jiro dhiirigelinta ardayda kulana dardaarmay ardayda kale ee deegaanka inay u dhabar adeegaan waxbarashadooda si looga mar dhaliyo heegsiga qorshaha GTB2ga runtii caawa shuurtayda mid aan soo koobi karo maahan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku guuleystay missionkaygii kaasoo ahaa in aan jaamacadda Diridhaba ka qalin jabiyo aan hadafka aan u yimid ay tahay mid waxbarasho aan guul ka gaaro caawa waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu faraxsanahay in aan guushii aan hiigsanay aan gaaray waalidiintii dhammaan ardaydan ku soo dadaashay aad baan ugu mahadcelinayaa oo u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo la garab taagnaa in macnaha ardaydan ay ka soo baxaan maxaa la dhahay waxbarashadooda ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa run ahaantii maanta dareenkayga ma qiyaasi karo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal dheer u gashay sanadihii ugu dambeeyay sidii bulshada deegaanka loo gaarsiin lahaa waxbarasho dhameystiran si looga baxo jahliga iyo aqoon darrada dhinaca waxbarashada loona soo saaro cudud dhalinyaro oo waxbaratay oo ka qayb qaadatay qorshayaasha xukuumadda ee loogu horumarinayo bulshada deegaanka gabagabadii xafladan qaaliga ah ee loogu sameeyay casho sharaf ardayda ka qalin jabisay Diridhaba University oo dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa la guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore gashay shahaado sharafyo iyadoo xafladan ku soo gabagabootay jawi farxadeed Cabdirsaaq إبراهيم كلاس عبد الرزاق ذا تلفزيون كعالمي جاء الصومالي يوتيوبية يس تي في سامي منافشة هوتيل اسمه ملك مقالة Diridhaba qurba joog u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa booqday beer ku taala degmada Goday qurba joogta ayaa sheegay in waqti xaadirkan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka jiraan fursado badan oo dhanka maalgashiga sida warbixintan uu ku sheegay wariye Farax Bade qaar ka mid ah qurba joogta oo dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan qurba joogta oo dhalatay gobolka Shabeelle ayaa booqasho ay khibradooda ka qaadanayaan ku tagay mid ka mid ah beeraha ku yaala qabalaha badalacad oo ka tirsan degmada Goday ee gobolka Shabeelle beertana uu maal gashay muwaadin u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah beer ay ku beeran yihiin noocyada kala duwan ee dalagga beeraha taasoo dalagga ka soo gaar loo iibgeeyo suuqyada waaweyn ee deegaanka waxaana xubnaha qurba joogta sheegeen in maanta ay u tahay maalin farxadeed sidaas awgeedna horumarka xawliga sare ku socda ka qayb qaadanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan khibrad wadaagna ay ugu filantay intan maanta ay arkeen aad baan idinka mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen maamul ahaan gobol ahaan degmo dhammaan iyo dowlad deegaanba waxaa aad iyo aad farxad nooga inaan dhulkaanaga hooyo nimaadno oo aan la qaybsanno farxadda ka jirta iyo nabadgelyada ka jirta iyo wanaagga ka jirta waxaana mahadda iskale ilaahigii qaadir subxaanka ee abuurtay inta kadib ciidamada new booliska ee nabadan dhaliyay ayaa mataqaanaa waxaan oo dhan asaas u ah haddii aan nabadgelyo jirin maanta beertan meena nimaadneen marka inaan horta koow nabadgelyadeena adkaysano oo maanta qaran baan nahay qarnimadeena adkaysano xusbigeena iyo dowladeena aan garab istaagno sida aan dibadda ugu taageerno iyo gudahaba mataqaanaa inaan meesha ka sii wadno aad baan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeeshay inaan maanta arko beeraleyda badilacad inkastoo meelo badan ii harsan yihiin gidibkana aan tagay maalin walba waxaan arkayaa wax soo saarka iyo waxqabadka iyo wadanka waxa ka socda runtii aad bay farxad gelinaysaa maalinta aan ka tagay iyo maanta farq weyn baa u dhaxeeya gabadha yar ee ariga la joogtay ee 7 jirka gaarigan jigjiga ka soo raacay baan Goday ku imaaday inta wadadan soo socday aad buu runtii dhulka ii farxad gelinayaa waana ku faraxsanahay waxqabadka waxaana leeyahay ka daalina wada annagana insha Allah runtii waxaan u malayn mar walba inaan iman doono ma sha Allah sidoo horeba u sheegay saaxiibkay hadeen nabadi jirin horumar ma jiro wadanku waa nabadgeliyo wax dhibaa ma jiraan xitaa jeebsi baan ka jirin waanu ognahay South Africa wixii ka jiray waanu ognahay Mareykan wixii ka jiray gaariga banaanka duuyaala waa la kacayaa wax yar daqiiqada ka bacdi laakiin waxaanu aragnay indhahaanaga ku aragnay baabuurta banaanka dhiganaysa waaga ugu bariyahaya jeebsi baan ka jirin saqajaan baan ka jirin taana waxaan mahad iska leh ilaahay baa iska leh marka koowaad marka xigtaan oo mahad iyo bogaadin iyo ammaan baan u soo jeedinayaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan ciidamada new police iyo booliska iyo dhammaan inta nabadgelyada qaabilsan way ku mahadsan yihiin
sidoo kalena waxaa xubnahan qurba joogta ah ee indhaynaya horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya halka uu marayo horkacayay kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeelle ahna madaxa xafiiska cadaaladda gobolka Shabeelle Mudane Shukri Barise iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Goday waxayna qurba joogta uga mahad celiyeen booqashada ay maanta ku yimaadeen beertan qabalaha Badalacad iyagoo sidoo kalena qurba joogta u iftiimiyay wadada ugu dhow ee maalgashi uga samaysan karaan gobolka Shabeelle. halkan waxa weeyaan waa beer ka mid ah beeraha gobolka Shabeelle ee qurba joogtu ay maalgelintaas waxa weeyaan dhammaan qurba joogta dhan waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan gobolka oo ay maalgashadaan haddana waxaan la socda qaar ka mid ah qurba joogtii deegaanka u dhalatay gaar ahaan gobolka Shabeelle kuwaasoo macnaha run ahaantii ku dhiiran inay wax ka qabsadaan oo ay beerasho ka sameeyaan maalgelin ka sameeyaan dhammaanba dhulka ballaaran ee dihan ee ku yaala gobolka Shabeelle dhul beeraleyda webiga beertan dhex taganahay waa beer infrastructure maalgeliye dowladda Soomaaliya Itoobiya oo dhashay maalgeliyay waxaan dhex taganahay wadaartii kulli waxaan nala socdaa boqoshada garboona taagan walaalahay qurba joogta dowladda Soomaaliya Itoobiya oo dhatay oo wadamo kala duwan ka timid sida Mareykanka, Jarmalka, South Africa ugu yaraan shan qurba joogay maanta nala joogta oo tusano wax deegaankeenu maanta xalka uu marayo dhinaca wax soo saarka walaalahoodii ka soo horeeyay ee maalgeliyaasha ee dibadda ka yimid qurba joogta iyaguna waxay qabsan beerta imika dhex taaganahay waa beer infrastructure maalgeliye dowladda Soomaaliya Itoobiya oo dhashay ayaa maalgeliyay waxaana waa 150 hektar baa imika meeshan beeraan dhex taaganahay Sheekh Baleela waxa ka beeran waxa weeyaan waa babaygu ka beeran yahay in walaalahay soo tusno babaygu ka beeran yahay muusku ka beeran yahay amba laftu ka beeran tahay liin macaantu ka beeran tahay in ala sonkorka ka beeran gacanta ku haya marka waxa weeyaan waxaan walaalahay maanta ku nabaaxay iyaguna aad bay u maaseen inay soo indheeyaan oo ay ku farxaan oo ay experience share ay khibrad wadaag qaataan xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Lagahida ayaa ololaha talaalka dhanka xoolaha ka fuliyay degmadaasi warbixin arrintan ku saabsan faahfaahinteeda waxaynu eegay wariye Cabdikaafi Axmed Wali xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Lagahida ee gobolka Erar ayaa olole isugu jira talaala iyo daaweyn ka fuliyay sabada ceelka Gabriel ee ku yaala degmada Lagahida ee gobolka Erar howlgalkan oo ahaa mid talaala iyo daaweyn lagu siinayo noocyada xoolaha kala duwan ee isugu yimaada sabada ceelka Gabriel ee degmada Lagahida ee gobolka Erar ayaa waxa howlgalkan fulinayay xirfadlayaasha xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Lagahida ee gobolka Erar waxaana adeegan si ballaaran uga mahad celiyay shacabka xoolo dhaqatada ee la gaarsiiyay adeegaasi daawi xanaana marka uga baahanay inuu degmada Lagahida daawi xanaanaysan lisan uga mahad celinaa uga sheeganayna waa sida qabalaha kuus barakan ka soo arooray marka cudurka kudka la yiraahdo ayaa geelana lagu talaalaya dawladana waan u mahad celinaynaa dhankoodana howlwadeennada xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Lagahida ee gobolka Erar oo u waramayay warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka warbixiyay talaalkan iyo nooca daawadan ee la siinayo xoolahan waxayna howlwadeennadu sheegeen inay adeegan gaarsiiyeen dhammaanba xoolaha nool ee ku dhaqan degmada Lagahida iyo nawaaxigeeda talaalka xoolaha oo ka talaalayna cudurka kudka la yiraahdo afka qalaadna loo yaqaan anthraxka hadaba bulshaduna maadaama la qabsatay waata noocan ay uga faa'iideysanaysaa xoolahan talaalayna aad ayay u farabadan yihiin sabadan arti waa sabab Gabriel ayaa la dhahaa sanad markii la arko waxa imanaysa intaas oo kun oo halad ayaan talaalaa qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay hanaanka ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku doonayso kor u qaadista tayada xoolaha nool ee uu qaniga ku yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya kalfadhigii toddobaad ee golaha xildhibaanada degmada Shilaabo ayaa waxa uu ka bilaabmay degmadaasi faahfaahinta warkan iyo wariye Maxamed Cali Warsame kalfadhigan toddobaad ee ka furmay golaha xildhibaanada degmada Shilaabo ayaa waxa looga hadlayay dhageysiga warbixintii waxqabadka sanad miisaaniyadka 2008 ee haatan gabagabada ah kaasi oo ay ka soo qayb galeen 70 xubnood oo kamid ah qoraamka saxda ah ee kalfadhiga golaha xildhibaanada degmada Shilaabo ayaa waxa furay kalfadhigan toddobaad ee golaha xildhibaanada degmada Shilaabo ka furmay afhayeenka golaha xildhibaanada degmada Shilaabo Marwo Steli Ugaas Xuseen hayeeshe kadib markii ay dhageysteen warbixinta waxqabadka 9 bilood ee la soo dhaafay ee uu soo jeedinayay gudoomiyaha maamulka degmada Shilaabo Mudane Cabdi Fataax Shukriye ayaa waxa ay cod buuxa ku ansixiyeen warbixintii halkaasi laga soo jeediyay fadhigan baarlamaanka golaha xildhibaanada oo 3 maalmood sii socday ayaa waxa
si faahfaahsan ay xildhibaanadu uga doodayeen iyo weliba geedi socodkiisaba ay uga doodayeen habsami u socodka howlaha waxqabadka sanad miisaaniyaadka 2008 ee gabagabada ah si markaasi loogu tilaabsado howlaha kale ee 2009 fooda inagu soo haya gudagalkooda waxa uu ku soo dhamaaday jawi wanaagsan oo markaasi la iskula qaatay habka loo maamulay habka loo fuliyay iyo weliba habka shaqooyinku ay socdeen maxamed cali warsame ESTV Shilabo kalfadhigii labaad ee golaha xildhibaanada degmada Daratoole ayaa waxa uu ka furmay degmadaasi sida warbixintani ku sheegay wariye Maxamed Cabdiwahaab kalfadhigii labaad ee golaha baarlamaanka degmada Daratoole ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka ee degmadaasi kalfadhigan oo ay soo xaadireen dhammaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka degmada Daratoole ayaa waxaa si rasmi ah u furay kalfadhigan afhayeen ku-xigeenka degmada Daratoole mudane Salaad Cabdi Guuleed oo faahfaahiyay ajandayaasha kalfadhigan isagoo oo tilmaamay in ajandaha koobaad ee kalfadhigani uu yahay dhageysiga warbixinta waxqabadkii 9 bilood ee sanadani 2008 ee degmada Daratoole sagaalkii bilood la soo dhaafay waxqabadkii mashaariicaha wixii ka qabsoomay oo ay noo soo jeedinayaan maamulka degmadu qodobka labaad waxa weeyaan guddiga joogtada ah ee dabagalka iyo baarlamaanka oo iyagana warbixinta maaragtay jawaab ka bixin doona intaas kadib waxay xubnahan baarlamaanku ay cod buuxa ku ansixiyeen ajandayaashii la hor keenay ansixintaasi kadibna waxa goobtaasi warbixintii waxqabadka 9 bilood ee sanadani 2008 ee degmadaasi soo jeediyay maamulka degmada Daratoole gabagabadiina waxay xubnahan baarlamaanku ay su'aalo ka weydiiyeen warbixintii la soo jeediyay iyaga oo jawaab fiican oo ay ku qanceen laga siiyay halkaasina lagu ansixiyay dhammaan ajandayaashii la hor keenay iyo warbixintii la soo jeediyay Maxamed Cabdiwahaab ESTV degmada Daratoole ee gobolka Doolo halka wili aad nagala socotaan waa ESTV markana wararka aynu ka helnay qaybaha kale ee dalka gudihiisa jaamacadda Amba ayaa waxa ka qalin jibiyay arday ay tiradooda kor u dhaafayso 4,000 oo arday sida warbixintani ku sheegay wariye Bashiir Cabbaas sidaan wada ogsoonahay waxa ka socda jaamacadaha dalka dadaalo lagu sii xoojinayo tirada iyo tayada waxbarashada jaamacadaha dalka waxaana xusid mudan in ay had iyo habeenba bulshada qaybaheeda kala duwan ka qalin jabinayaan culunta ay ka bartaan jaamacadaha ku yaala dalka gudihiisa haddaba jaamacadda Amba oo kamid ah jaamacadaha safka hore kaga jira hirgelinta hadafkii loo aasaasay ayaa waxa ka qalin jabiyay arday ay tiradooda kor u dhaafayso 4,500 oo arday haddaba munaasabadii qalin jabinta uu marti sharaf ka ahaa afhayeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Abdullah Gamada isla markaasina khudbad ka soo jeediyay fagaarihii qalinjabiyaasha ayaa sheegay inay jaamacadaha dalku si habsami leh uga qayb qaadanayaan geedi socodka dhanka horumarka iyo arrimaha siyaasadda sidaas darteedna loo baahan yahay in la sii badhagantaalo hawlahooda shaqo intaas kadib ayaa waxaa mas'uulku carabka ku dhuftay in ardayda qalin jabinaysa looga fadhiyo inay si daacadnimo iyo wadaninimo ku dheehan tahay ay uga soo baxaan uguna adeegaan dalkooda iyo dadkoodaba waxaa gabagabadii munaasabadda qalin jabinta wax laga weydiiyey ardaydii halkaasi ka qalin jabisay iyagoona sheegay in ayna had iyo habeen toona ka gaabin doonin shaqadii loo igmaday oo ay ka soo dhalaali doonaan si ay uga qayb qaataan horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka hana qaaday guud ahaanba dalkan Itoobiya qodobka ugu dambeeya wararka jaamacadda Wachamo ayaa waxa ka qalin jibiyay arday ay tiradooda kor u dhaafayso 1,500 oo arday mar kale wariye Bashiir Cabbaas guud ahaanba waxa ka socda jaamacadaha dalka dadaalo lagu sii xoojinayo tirada iyo tayada waxbarashada jaamacadaha dalka waxaana xusid mudan in ay had iyo habeenba bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qalin jabinayaan culunta ay ka bartaan jaamacadaha ku yaala dalka gudihiisa haddaba jaamacadda Wachamo oo kamid ah jaamacadaha safka hore kaga jirta hirgelinta hadafkii loo aasaasay ayaa waxaa ka qalin jabiyay arday ay tiradooda kor u dhaafayso 1,300 arday oo 446 kamid ah ay ahaayeen gabdho haddaba munaasabadii qalin jabinta oo marti sharaf ka ahaa wasiirka wasaaradda dhirta iyo isbeddelka cimilada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Shiforo Taglamariam isla markaasina khudbad ka soo jeediyay fagaarihii qalin jabinta ayaa sheegay in ardayda qalin jabinaysa looga fadhiyo inay doorkooda ka qaataan cilmigii ay soo barteen ee ay muddada soo wadeen isla markaasina noqdaan kuwo kaalintooda ka soo baxa oo had iyo habeenba u taagan sidii ay ugu adeegi lahaayeen dalkooda iyo dadkoodaba waxaana gabagabadii munaasabadii qalin jabinta wax laga weydiiyay
ardayda halkaasi ka qalin jebinaysay iyagoona sheegay inay had iyo habeen toona ka gaban doonin shaqadii loo igmaday oo ay ka soo dhalaali doonaan inay uga qayb qaataan horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka hana qaaday guud ahaanba dalkan Itoobiya. warkii xilligan idinkaga imaanay stuudiyaha ESTV magaalada Jigjiga waa naga inta waa aniga asxaabtiga la qayb qaadato dhamaantiin baydan leh sida iyo Ramadaan Kariim.